marka xaaladdu waa xaalad internet aad sheegaysaan mushkiladu war dawladda federaalka Soomaaliya xitaa cirkaan isla aadayna iyagu dhulkaad ka hadlaysaane cirkaana waa soo dagaalayna arkaysaa xaqada zuhurda ma maashi baa wadaaga ma dushaayo fiiri waxaan ka hadlaynaa waa system dawladeed system dawladeed baynu ka hadlaynaa Soomaaliya aba ila hadaa dhahdo prime ministerka wadanka waa nin reer Jubbaland inaad taagan waa la soo qabto inaad aan ku fahansiiyay inaad ma shaqeynayaan waxaas waxa qabiilka ka dhigaya waxay noqonayaan kuwa jiritaanka ogaadeenka dafirsan ama nidaamka ka dhigan aniga gariga gadarraba waa in Axmed meesha laga qaadaa Axmed nidaam baa looga qaadi karaa xoog loogama qaadi karo Soomaalida oo dhanna arrimo khaladaba iska haysataa iska aaminsan tahay waliba Soomaalida wadankan degan waxyaabo ay aaminsan yihiin baa jira hadda marka dadku ay sheekaysanayaan waxaad maqlaysaa ka yimid meel gordid waxaan dhageysanayay qol lagu doodayo maartay waxa weeyaan in laga dhigayo ciidanka Jubbaland mid meel ka imaaday waxa weeyaan Somali state iyo wax sheegay dadka qaxoontiyada ka imaaday wax saas sheegay iyo xaqada dhabta waxay tahay Jubbaland حسن إنه وإسكده إنه معنا أحمد سوى قبته Jubbaland إنه قبصة حسن أحمد إنه أبقى قبصة كذي dadka u baahan maanta in la dagaalamo iyo dhaqaalo iyo xoog iyo karti iyo aqoon iyo maskaxba lagu bixiyo la dagaalankooga waa dadka ah dawladdu haday wanaag rabto dawladnimo Soomaaliyeed ay doonayso oo xasan madaxweyne uu yahay ummad Soomaaliyeed oo dawlad Soomaaliyeed loo doonayo oo xamse ra'iisul wasaare uu yahay annagu ma aanu dirsan Axmed Madoobe raadintiisa Puntland dubinteeda maxaa la yiraahdaa dhaar weerarkeeda Kismaayo ku duul shacabka gada isku diridii uma aanu dirsan horumar kalena uma aanu dirin waxaanu dirin war bal marka ugu horeysa wixii kale la isugu yimaadeen ما ريال بلدك على شيطان كقبت إسكده دلائي كقبتانه أنت هرو لوجا حرية بهذا على الشباب بيقبست والله وريت وبكأي دولة كرنا عن بيدي بقول صوتك على الكلام وهذه مسكح عادية إنه حكوا إنه حسن يد دولة ديس يا حمسة هذين مسكح عفما غبتوا عن قبيل هاي إنه كوا إنه دولة دوي كابس nimanka absame iyo marxaanna mid baan leeyahay war arrinkiina arrin daarood maaha oo arrin absame maaha oo arrin marxaan oo dhan u yaal maaha waa arrin deegaameed haddaydan ku heshiin inaad maamul wada dhisataan nabad ku wada daaqa dadku waa inay waxun ku heshiin karaan oo nabad ku wada daaqi karaan ninkan marxaane daarood ka cabanaya in daarood madaxweyne u ahaa xilligan la cabanay sida lagu duqeynay waxaan oo ku dhacayeen madaxweyne u ahaa daarood Soomaali madaxweyne u ahaa adigu madaxweyne soo ahaa adigu israacde adigu isu waran daarood maamul goboleed jooga oo adigu madaxweyne ummadda Soomaaliyeed adoo mahadsan warqada uu ku soo warqada deebeen baynu isu sheegaynaa Axmed Madoobe shalay bay dawladdu weerartay soo qaban kari weyday inaad arukaad laakiin wakhaladka ka weyn ba wuxuu yahay war Axmed Madoobe meeshuu joogo iminka colaad muuqata kama jirtee dawladdu maxay priority u siinaysaa maxay maamul goboleedada nabadda siyaasad ahaan baanu ku kala duwanay ugu weeraraysaa waan labadan maamul markii horeba mucaarad bay ahaayeen farmaajo mucaarad bay ku hayeen xasan iyaga dhisay iminkana xasan mucaarad bay ku yihiin weerarkoodu wax micnaa ma samaynayo inuu wax sii qaribo mooyaane waxa ma hagaajinayo nimankana way hubaysan yihiin ubay halka la fadhiyaan ummad bay galaafanayaan labada dhinacba laakiin marka ugu horeysa dawladdu inta ay ka taliso ee maanta gacanteedu gaari kadho markay nabadayso oo dhibaatada ka saarto tanna way u soo wareegaysaa marka haday weerarto umada kalena way ku taageeraysaa waxay oranaysaa nimankani far dheeraatay bay noqdeen
laakiin iminka waa nin qoyan biyo iskama dhowro dee ama santa هذا ما xamar bayn nabada hayn ما سنت هذا ما أبوان مدوشة سود بالكسع ورقدان كسب حذي حكومة الصومالية مدوشة مجوكتا إلى هذا ورقد المارتها ليه ورت سيدا عادي جا ورت ودنكو قبيل كما بحين قبيل باوليس كتير وحلي جاهدو الصومالي دورنا الرما خلطة بإسكا هيستا إسكا بيسنتهاي وليبنا الصومالي دا ودن كان دقن waxyaabo ay aaminsan yihiin baa jira hadda marka dadku ay sheekaysanayaan waxaad maqlaysaa ka yimiday meel guriga waxaan dhageysanayay qol lagu doodayo maartay waxa weeyaan in laga dhigayo ciidanka Jubbaland mid meel ka imaaday waxa weeyaan Somali state iyo wax sheegay dadka qaxoontiyada ka imaaday wax saas sheegay iyo xaqada dhabta waxay tahay Jubbaland حسن إنه إسكده إنه معنا أحمد سوى قبته Jubbaland إنه قبصة حسن أحمد إنه أبقى قبصة كذي أنا هو حوي هذي جنرال كمرك وخردني قياسه وسن هاي السنين صوت الصومال دوا قبيل لقوا حب بدل ما تشوف هذا ربطوا مداس إنه ندارو ضودين كان أورانين annaga oo ogaadeen ah waliba farsamada ka xun hadda rag ogaadeen oo mucaarada jira laakiin in yar haday dheer dhageystaan mucaaradoodu ma sii shaqeynayso waxay ogaanayaan arintaasna waxa u bedelaya arrinka noocaas waa mariixan markaaba waxay dhageysan doonaan mariixan oo qabiilaysanaya ee mucaaradkii ogaadeenku kala ma safanayaan marka wixii wax iska caadi oo mariixan iyo ogaadeen ayay iska noqonaysaa marka mariixan wuxuu isticmaali doonaa wax uu sanaga xigin oo ah dawladda federaalka ee wada leenahay haddii marka mid uu isa siiyo anaguna dawladda kale aan leenahay ciidankan gada jooga anaga leh waa kicinaynaa diyaaradii aad sheegaysan iyo generaaladii Kenya waa joogan dhaqaale nooga baxay meeshan antii badan wadankan dhan waxa laga dhisay meeshan marka xaaladdu waa xaalad internet aad sheegaysan mushkiladdu war dawladda federaalka Soomaaliya xitaa cirkaan isla aadayna iyagu dhulkaad ka hadlaysaane cirkaana waa soo dagaalayna barkiisa xaqada zuhurta ma maashi baa wadaaga ma dushaayo fiiri waxaan ka hadlaynaa waa system dawladeed baynu ka hadlaynaa Soomaaliya aba ila hadaa dhahdo prime ministerka wadanka waa nin reer Jubbaland inaad taagan waa la soo qabto inaad aan ku fahansiiyay inaad ma shaqeynayaan waxaas waxa qabiilka ka dhigaya waxay noqonayaan kuwa jiritaanka ogaadeenka dafirsan ama nidaamka ka dhigan yaaniga gariga gadarraba waa in Axmed meesha laga qaadaa Axmed nidaam baa looga qaadi karaa xoog looga qaadi karo nidaam waxa weeyaan wiilka halkan ka hadlaya cawliyahan oo kala socdo waxa weeyaan maartay wiil kale oo waxa weeyaan Axmed Subeerhi oo kala socdo wiil kale oo bahgarihi oo kala socdo wiil kale oo makaahil oo kala socdo noocaas looga qaadiraa laakiin ka laabta garaacato iyagana laabta garaacada qabiil hadii ay noqotana abgal iyo turkiga oo wada socdo xitaa mariixan hada soo kaxaysataan anaguna waxa weeyaan kuyo koobada iyo waxa weeyaan Ethiopia absame baa meesha noo soo galaya waad dilka lahayn siya jira waaweyn geda farsoon bay isku bedelaysaa xaqiiqada ogow waa inaad wax xisaabisaa ma aha inaad waxa weeyeen iska waxaysaa sababtoo ah haddii meeshu ay ahaan lahayd system ee aan qabiil la isku haynin Axmed waa laga reyn lahaa laakiin system ma aha ee mariixan qabiil ku dhex wada jira mariixan qabiil ku dhex wado ayaa jiro oo doonaya agabka la wada leeyahay ee federaalka ah ina ay systemka Jubbaland oo naf iyo maalba waxa gacanta lagu hayo loo huray ina ay waxa weeyaan maartay ugu isticmaalaan wax hal dhinaca oo marka federaal marka hal dhinac federaal hadaa isticmaashaan federaalku bay agabka oo wato dawladuhu heshiis leeyahay arrimo kale meel ka keenay waxyaabahaas jira marka anaguna dhinacyo kale badan baa wax ka soo dhiraan madusha